barnaamijka dunida ka yaabiyay Ghaith iyo qalbi itmaan waxa kalkii shanaad socda barnaamij hadgooni ah oo dunida aad looga soo dhaweeyay barnaamijka magaciisa waxa la yiraahdaa qalbi itmaan waxa soo saara Qays oo ah wiil dhalinyaro ah oo aan wajigiisa weligii la arag waxa maalgeliyay ururka bisha cas ee Imaaraadka barnaamijku waxa uu si taxanaa u socdaa sanadkii shanaad sanad kasta waxa uu soo baxaa bisha Ramadaan halkii kal ama sanadba wuxuu ka kooban yahay 29 xalqadood ama 3 xalqadood kolba intii bisha Ramadaan noqoto dadka waxa uu ka caawinayaa qof kasta baahida uu qabo wuu soconayaa meel buu tagayaa dal gaara kadibna dalkaasi baahida ka jirta ayuu ka caawinayaa tusaale ahaan waxyaabo dadka caawiyo waxa kamid ah waxbarashada adeegyada caafimaadka shaqo la'aanta hoy la'aanta xiriyaha qaxootiga dadka ku nool qofka la mustaafiriyay ee meel qaxooti ku ah agoomaha macallimiinta bila mushaarka iyo xawaalmadka qof kasta baahida uu qabo ayuu siiyaa barnaamijku waxa uu dhacayaa qaab ah Qays baa soconaya oo dal tagaya kadib dalkaas ayuu ka raadinayaa qof baahan oo waxyaabaha mataqaanay uu hayo tabaya qof meel meherad yar ku haysta ayuu Qays u tagayaa kadibna waxbuu siinayaa qof meel meherad ku haysto tagaya waxbuu siinayaa carruur meel qaxooti xiro ku ciyaaraysa ayuu qofkii dhex qaadaya kadibna waxbuu ku caawinayaa waxbarasho wax la mid ah niyad jab iyo dad warwar badan haysta ayuu tagayaa waxay baahdeen buu siinayaa kadibna qofkaas ayuu noloshiisa ka wareysanaya marka uu qofka noloshiisa ka wareysto ayuu Qays aad buu muraaqoobanayaa wad fiican tahay waa sidan buliya kadibna waxa uu caawinayaa qofkaas boorsada dhabarka ku sido ayuu ka soo saarayaa kiish lacag iyo hadiyad ay ku jirto kiishka lacagta ma ahay wax ka fariin kale ayaa la socota fariintaas waxay qofku u sheegaysaa inuu yahay qof wanaagsan oo xaq fiican wax ka eega qofkii baahan miskiinka aba farxaya farxadii qaadoob qofkii looyaya kadibna marxabiisinaya laabta ayuu gelinaya lacagta uu qaysiinayo qofkaas baahan waa mid duruuftiisa wax ka taraysa hadii qofku u baahnaa mid guri la'aan hoyba u dhisaysaa hadduu waxbarasho la'aan ahaa waxbarasho ay qofkaas ka bixinaysaa haddii cunto baan cunto ay u goynaysaa waa mid caafimaad iyo wax kasta duruuftii qofkaas qabi u goynaysaa haddaba shakhsiyan ka Cabdirasaaq Sandheer ahaan waxaan isku dayi doonaa xalqadahaasi inaan soo turjumo af Soomaali ka dhigo kolba inta yar ugu macquul soo kooban channelka Xokororsi iyo bogayga Facebook Cabdirasaaq Sandheer ayaan kala wadaagi doonaa dilaa qadaro wad baasantiin sida ay la socdo wanaagsan xalqadaha